haddii burco maalintii aad xanaaqsanayd lagu sii daayo xolba dee ha ka dhigin burco in dadka kale ay representationkii isaaq ku lahaa ay ku lahaayeen waxaa iman kara dad fara badan oo aan aaminsanin gooniisutaag dad fara badan oo laga yaabo inay 90skii xataa rumaysnaayeen laakiin kolkay arkeen sida ay tahay dowladnimadan Soomaaliland dad fara badan baa imika aan haddii heli karayaan in gorgortan dambe ay Soomaaliya la galaano muxuu federaalka iyo gooniisutaagu dan ahaan marka aanad ka hadlayn hadda caadifyada isaaq ee qalbiga jacaylkiiyo nacaybka marka aanad ka hadlayn xamar dooni mayno markaan taa ka hadlay eed caqli ka xisaabtanayso anigu haddii aan arkayo wax u dhaama gooniistaaga noocaan aan arkaya een guri hadhin ee wax walba la iibsaday ee cadaaladdeeda sidan tahay taadeer wixii aan siyaad barre ku diiday wax ka xun anigu gooniistaag dee ku qaadan maayo oo ku taageeri maayo dii oo aniga laygu odhan maayo xabaalaha dadka ku jiriyo lafaha kaygu odhanayana hadda waa kii dilayba isaaq ayeentu haddan isaaqnimo safka ku soo maraa aniga igu leeyahay marka anigu nimankaan waan raacsanahay waana niman aqoon leh waana niman madaxa doodahoodana anigu waan arkayaa halka ay iska seegan yihiin dadka oo waxa weeye nimanka daarood maskaxday ka taliya nin jecel iyo nimaan jecelaynba isaaquna qalbiguu ka taliya marka caadifyad weeye ta qalbigu ninka maskaxda ka taliya kolba jar buu dhigayaa isaguyo waa sax kolka cali khaliifa la yaabinde hadda cali khaliifka idinla hadlaya ee leh war aynu Somaliland aynu wada leenahay samaysanno markuu sidaa yidhaa waxaa la soo boodayaa idin may iyo xasuuq wana la xasuuqay war xasuuqa laguma helo dee qarannimo hadduu ku yidhaa aniga lama xasuuqina deega taga daba oo waxaad samaysataa Somalilandtii dadka la xasuuqay hadduu ku yidhaa lixaq buu leeyahay isna waxaabuu ku odhan karaa dowladdaydii daarood baad rid marka adeer waxaa tegey ma aha waxaynu inuu mustaqbalkeenna waxa go'aaminayaa noqdo wixii tegey maaha mustaqbalkeenna aan uga tashanno unbu cali khaliif leeyahay cali khaliif wax kale ma leh haddana maxaa looga dhigayaa waxaa laga baqayaa isaaq oo dee saasoo waa loo dhintayoo waa la dhintay xabaalaha ibaa la soo faqaya war waxaasi wax dad loogu sheekeeya maaha ee qarankan ma wada dhisannaa oo ma wada yeelannaa xaggeed ka keentay inaad 750 xubnood isaaqba ku yeesho golaha 25 ay dadka la dega isaaqoo dhammi 25 xubnood ku yeeshaan kitaabka qoraya halku ka yimi aan wax wada yeelana dee waa taa dastuurka hala furo maaha qaynuun in cali loo furo cali khaliif in dhulbahanta loo furona maaha waa in innagoo isu dhan aynu eegnaayo wixii inaga qaldan aynu ku wanaajinayno dastuurkeenna iyo goorta ugu habboonee aynu furayno dee innagu aan ka hadsanoo lesinad ha loo saaro waxaanan rumaysanahay anigu waxaa ka dhow oo ugu dhow in la yidhaha siyaasadda khaarijigu ay noqoto ma aha aanu Soomaaliya wada hadalno ha laga qaado aqoonsi ha laga qaado afti shacbiga Soomaaliland xaq buu leeyahay madaxweyne codun buu leeyahay ka muqdisho joogay oo dhashay muxuu ka yaray ra'iisul wasaare ku-xigeenkiina cod buu isna leeyahay every one of us cod buu leeyahay weliba beersantka intay goorgoortahay haddaynaan qabanin aftidana beersantku waxaad mooddaa inuu isa soo weydaaranayaba oo anigu garan maayo maanta midnimo iyo gooniisutaa kaanu codaynayo waayo aniga waxaan ku go'aan qaadanayaa waxa dadkayga u dana ya dalkayga iyo dadkaa anigu aan ahay wixii u dan ah ayuunbaa i xukuma caadifiyad iyo gooniisutaag iyo isaaqnimo iyo hebel iyo anigu daaroodna maan necbayn siyaad barrana maan necbayne waxaan necbaa nidaam iyo sharci cadaalad darro iyo kelitalisnimo ayaan diiday dee tii lafteedii oo ka sii xumay markay Somaliland ka dhacdo miyaan iska taageeraya ay u qabtaa no ma taageeraya markaas waxaan leeyahay federaalkaasaa u dhaama